ciyaarahan Amsterdam Futsal hirda Amsterdam Futsal Tournament waxaan u bilownay sababta ugu horeysa waxay ahayd in horta dhalinyarada Soomaalida ay isku arkaan ay noqoto meel ay network ku sameystaan isla markaana dadka Soomaalida xataa oo wadamada kala duwan ka imaanay ay isku arkaan kale waxay ahayd in dhalinyaro oo ciyaari karta oo ciyaarahan footballka ciyaari karta ay ka soo baxaan marka taasa ugu weyn horta isla mid kale oo ayadana muhiimka ah oo aan ciyaaraha u sameeyno waxay tahay in dhalinyarada lagu xiro wadankii in lagu xiro oo ay arkaan inay wax ka qaban karaan waxaan u arkaa runtii tournament aad u wanaagsan gaar ahaan dhalinyarada waliba dhalinyarada jiilka hadda soo korayaan inay isku wada kulmaan la kulankaas oo ay ka dhasho macnaha ka soo baxo ciyaartoy wanaagsan oo berito mustaqbalka ama future Soomaaliya oo ciyaari karo hirdo laga bilaabo 2005 ilaa iyo hadda wax la shaqeynaa waxaana ka wada shaqeynaa sidii dhalinyarada Soomaalida ee Holland degan iyo Europe wax ugu qabano waan yani isku keen waqtiga ay fasax leeyihiin runtii aniga waa caawiya si voluntary ah iyagana shaqada ay qabtaan waxyaabaha laga faa'iido ugu badan waxa kamid ah horta dhalinyarada inay afka Soomaaliga ku hadlaan waayo markii ugu horreysay aan bilaabaynay afka Soomaaliga dhalinyarada ma isku hadli jirin waxay ahaayeen dhalinyaro kala wadamo kala duwan ka timid luqado kala duwan ku hadasha waxay u noqotay meel ay isku arkaan afka Soomaaliga ku wada hadlaan waayo way ku qasbayeen afka Soomaaliga ku wada hadlaan waxay kaloo noqotay meel dhalinyarada ay ka qaadan karaan ama ay trots ama proud ay ku noqon karaan inay arkaan dad Soomaaliyeed isku yimid oo wax qabanaya marka labadaas arrimood ugu muhiimsan oo laga faa'iideystay dadka sportiga ciyaalna meel ay soo higsadaan oo ay isku yimaadaan ayagana isku arkaan noqoto taas ani muhiimad weyn asaar waxay isdhexgalka bulshada Soomaalida dhalinyarada isku timaadaan laga faa'iiday waxa ugu muhiimsan runtii sanadkan aad iyo aad ugu duwan yahay sanadadii hore maadaama hirda ay ku soo kordhisay sanadkan basketball ama ciyaarta kubadda gacanta gaar ahaan gabdhaha runtii waa wax horumar sportiga oo dhiirigelinaya ama diilo ku sameynaya way dhalinyarada Soomaaliyeed ee meesha ku barbaartay ama imaaday ku dhashay inay helayaan fursad ay isku imaadaan isku arkaan isku sii bartaan af Soomaaligood ku saxmo at least ani ahaan taas ka hadaba kali bilaabay muumanana in wax muddo dheer si soconayso haddana wixii way weynaadeen dadka ka qayb galeen wax dhalinyaradii ay isdhexgal ku sameynayso waa wax dhalinyaro kala luqada kala dhaqana ilan anugu meesha ku kor ku dhaqan yahay ay Soomaalinimadii wax kor loogu qaadayo waan wax oo qof walba damiir leh ama wadanimadiisa ay haydahay farxay sanadkii hore iyo sanadkan kala fiican sanadkii hore isagoo fiican sanadkan waxaad moodaa inuu sanadkii hore ka sii fiican yahay taasna waxay cadeynaysaa in hore loo socdo horta sanadkan wuxuu ku doonaa laba arrimood mid waxay ahayd iyadoo tiimamka ay ka badnaayeen intii hore oo sanadkan waxa ka soo qayb galay 36 tiim oo ilaa 9 tiim ay ka yimaadeen dibadaha inta kale ay ka timaadeen Netherlands ay ka wada yimaadeen taas mid waxay ahayd weyn oo waxa isku yimid 360 dhalinyaro ah mid kale oo ayadana uga duwaneed waxay tahay iyadoo ciyaarihii ay ka soo qayb galeen dumarka ama haweenka ay ka soo qayb galeen gabdhihii basketballka ay nala joogeen oo aan ku soo darnay ciyaarta basketball marka la dhaho waa alwada kaliya aan leeyahay oo aan lahaa ka soo bilow 14 jirkii ilaa hadda way ka maqneen meesha basketka hadda fursadan qaaliga hadda gabdhaha loogu baaqay inay ciyaaraan ee kala imaanayo wadamadan dariskeena Soomaalida imaan wax weyn waa maxay basketka bilowgiisii gabdhaha hadda ciyaarayo waxa dhacaysa tan dambe in intaas ka badan imaadaan aniga maxamed ahaan wallahi waa ku qeyrooday runtii gaar ahaan waliba ciyaaraha basketka gabdhaheennii dheeleen loo qabtay waxa dib ii xasuusiyay 30 sano ka hor markii lagu ciyaarayay garoonkii Cabdilcasiis ku yaalay Kamba Maxaro finta una baluuj la qof si uu yaqaano wax badan waxaan ku yiri gabdhaha waa inaan ka qayb qaataan ciyaaraha marka sanadkan waxay noqotay chance inaan gabdhaha siino inay ciyaaraan waxaan noqotay mid lagu guuleysto oo dadku dhan ay ku farxaan insha Allah waan lagu celin doonaa gabdhaheennii meesha ka ciyaarayay gabdhihii shalay aan meesha ku daawanay ilmihii ay dhaleen ayaa runtii ka soo qayb galay hooyo iyo gabadheeda arkay oo ciyaarta ka qayb galay baarin iyo gabadheeda dhashay waxa la ii sheegay in ay gabdho ku jiraan sanadkan horena loo qabin jiray marka aad aan ugu farxay in gabdhihii Europe jooga loo qabto koobsana ay wada ciyaaraan walow wada badnaan gabdhihii qaranka ee aan Sweden ku xareynay ee dooxa qayb galay ay Europe badnaayeen haddana waxa uu sii naqanay ayaga tababar
ay isla yeeshaan. gabdhaha naftirkooda kubadda kolayga haddii loo suubiyo tournamentyo noocan oo kale ah sanad laha mar waliba marka waxaa ka soo baxaya team wanaagsan oo Soomaali dadka oo Holland joogo kala ciyaarahan si fiican uga soo qayb galaan waa inay gacan siiyaan laakiin dadka kale ku faa'iideysanaa oo miraha guran lahaa ka maqan waa inay imaadaan ay dadka fiican oo ciyaal fiican oo meeshan jooga ka qayb qaataan in dadka Soomaalida kale oo Yurub kale waxa ilaa inay tusaale ka dhigtaan dadka Holland degan ciyaaraha qaban sida horto kale ayagana ciyaaraha qabtaan oo ciyaarahan ugu qabano in wadankana wax ku tarno 36 kooxood oo koox walba dhowr iyo 10 ciyaartoy wada ayaa ka soo qayb gashay oo Soomaaliya يعني waxaan runtii qof kasta Soomaaliya waa inuu ku farxaa anigu aad baan ugu faraxsanahay intaasna ciyaartooygaas oo dhanna u maleyn maayo in laga waayi doono ciyaartooy barito aan ku faano oo wadankeena matala horta mustaqbalku waxa ugu muhiimsan oo aan rajeynayno xitaa in ciyaarahan aysan joogsan oo ay sii socdaan waayo dad badan ayaa ku xisaabtama oo Yurub ka yimaada waxay noqotay meel dadka Soomaalida meel ay joogaanba ay ku xisaabtamaan oo laga wada ogyahay marka waxaan rajeynayaa horta ciyaaraha sii socodkooda inay sii socdaan ciyaartooyda oo kan geeska jooga Yurub iyo geeska ilaa Finland ilaa Denmark ilaa Ingiriiska ilaa laga soo qayb galay ilaa Jarmalka intaas ciyaartooy Soomaali qofba meel ku nool qofba afgooniye ku hadla af Soomaaliga sokow ayaa meel isku keenay oo isbartay oo sheekaystay oo wada qayb galay sanadaha soo socda insha Allah waxaan rajeynayaa Amsterdam tournament inay ka badato ama ka fiicnaato sanadihii la soo dhaafay iyadoo dhalinyarada yarka ay ka qayb gali doonaan 14 jirada ilaa 16 isla markaana gabdhaha ay ka wada qayb gali doonaan runtii waxaan ku soo kordhi lahaa in carruurta yar yar loo suubiyo tournament yar ayagana carruurta almost 10 jirka ah ama inta ka yarba midda labaad waxay tahay in dumarka ama gabdhaha basketka wiilasha xataa basketka inay ka noqdaan qayb ka mid ah ciyaaraha gabdhii basket soo aragnay wiilasha basketkana iyagana hal lagu soo diro gabdhaha basketkana laba kooxood oo hal ayun baa ka qayb galay in kooxaha la badiyo waxaan rajeynayaa xataa inay ciyaarahan ay noqdaan kuwa iswada because sanadkii hadda ahaa waxaan sameynay contribution ay dhalinyarada bixinayeen oo ilaa 50 euro ah wax weyn naga kabtay marka waxaa arkaysaa inay dadkii rabaan marka ciyaarihii kuma xiraanayaan funding dibadda waxay ku xiraanayaan dadka la tirkooda marka waxaan rajeynayaa dadka inay isku caawiyaan oo sustainability ama horumarinta ciyaarahan iyo socodkeeda ay suurta gasho